Dunida casriga ah, tiknoolajiyadu waa mid si joogto ah u horumaraysa, waxaana qayb weyn ka qaata tan ugu casriyaysan ee robotyada. Kana waa robotka loo yaqaano humanoid oo loo nashqadeeyay inuu u eg yahay bini'aadamka, isla markaana u dhaqmaan sida dadka oo kale. Humanoid robot waa mid leh qaab dhismeedka bini'aadamka oo kale, sida laba lugood, laba gacmood iyo madax, taasoo u sahlaysa inuu sameeyo dhaqdhaqaaqyo u eg kuwa dadka oo kale. Wuxuuna awoodaa inuu ordo, socdo, iyo xitaa inuu sameeyo qoobka ciyaar. Mararka qaarkoodna wuxuuba ciyaaraa kubadda cagta. Robotyada noocan ah waxay bilaabeen inay ka hawlgalaan ama ka shaqeeyaan meelo kala duwan sida caafimaadka, waxbarashada, iyo adeegga dadweynaha. Daawada waxaad isweydiinaysaa cidda samaysay robotyadan casriga ah. Hagaag, waxaa sameeya shirkado kala duwan oo hormuud ka ah tiknoolajiyadda casriga ah, sida Boston Dynamics, Honda, Tesla, iyo SoftBank. Shirkadahaas ayaa horumariyay robotyo caan ah sida Atlas oo ay samaysay shirkadda Boston Dynamics, Asimo oo ay samaysay Honda, iyo Optimus oo ay samaysay Tesla.